يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا. السلام عليكم. kor u qaad difaacaga jirka. haddii aad doonto inaad kor u qaado difaacaga waxaa laga yaabaa inaad ku wareerto sidii aad uga caawin lahayd jirka inuu ka guuleysto wax waliba oo khatar ku keeni kara. marka aad rabto kordhinta hab difaaca jirkaaga kali ah waxaa kugu filan inaad wax ka bedesho raashinkaaga iyo hab nololeedkaaga guud. kadib difaacagu waxa uu awoodi doonaa inuu ka takhaluso wax waliba oo khatar ku ah jirka. inta aan mowduucan ku guda jirno waxaan kula wadaagi doonaa 7 qaab oo aad ku horumarin karto difaacaga jirka. ku soo dhawaada mar kale iyo mowduuceena. haddii aan guda galno mowduuceena kor u qaad difaacaga jirka, qodobkeena koobaad wuxuu noqon doonaa 1. hel hurdo kugu filan. hurdada iyo difaaca jirku waa laba isku xiran. qofka aan seexan hurdo ku filan waxa uu u nugul yahay ku dhicidda xanuuno ku soo noqnoqda. dhanka kale qofka seexda hurdada ku filan waxa uu haystaa difaac adag oo uu ku wajihi karo xaalad walba oo jirkiisa la soo dirista. qofka weyn waxa uu u baahan yahay qiyaastii wax ka badan 7 saac oo hurdo ah habeenkii, halka dhalinyarada iyo caruurtu u baahan yihiin 8 ilaa 10 saac oo hurdo ah. haddii aad leedahay hurdo xumo, iska jooji telefishinka saacad ka hor xilliga jiifka. iska dami layrka taleefanka, ka dhig qolkaaga mugdi si aadan mar walba ugu soo baraarugin iftiinka qolka. 2. cun qudaarta iyo raashinka qolofta leh. qaado miraha iyo qudaarta nafaqada leh jirkana ka saarta sunta. inta badan qaadashada qudaarta noocyadeeda waxa ay difaaca jirka u sahashaa saarista sunta jirka iyo kordhinta tayada difaaca ee jirka. cuntada qolofta leh sidaa oo kale waxa ay qayb ka qaadataa difaaca jirka iyada oo wanaajisa dheefshiidka iyo socodka caloosha, markaana qofku wuxuu awoodaa inuu qaato raashin wanaagsan. 3. qaado raashinka la qamiiriyey. cuntada la qamiiriyey waxa ay u leedahay jirka faa'iido badan, waxaana laga helaa bakteeriyada jirku u baahan yahay ee hagaajisa dheefshiidka. sida caadiga ah jirka shaqooyinkiisa waxaa qayb ka qaata noocyo ka mid ah bakteeriyada, taas oo uu jirku u baahan yahay, sida bakteeriyada lagu magacaabo normal flora. 4. sameey jirdhis joogto ah. haddii aad samayso jirdhis joogto ah waxa aad dhiirigelisay kor u qaadida difaaca jirka si guudna caafimaad qabkaaga ee jireed. sidaa oo kale jirdhisku waxa uu hoos u dhigaa caabuqa guud ee jirka asaga oo sahla cusboonaysiinta unugyada difaaca ee jirka. 5. milanka jirkaaga joogtay. joogtaynta milanka jirkaaga kama hortegayo fayraska iyo bakteeriyada weerarka ku soo ah jirkaaga, laakiin waxa uu ka hortagaa fuuqbax ku yimaada xubnaha jirkaaga, halkaana ay caafimaad darro ka dhalato. fuuqbaxa jirkaaga ku yimaada waxa uu ku dhaxalsiin doonaa wareer, afqaleyl, shaqo xumo soo wajahda wadnaha iyo keliyaha, iyo adiga oo maskaxiyan iyo jir ahaanba daal dareema. si aadan xaaladahan oo idil ula kulmin iyo sidoo kale difaaca jirkaaga oo hoos u dhaca, bakteeriyada iyo fayraskuna ay ka faa'iideystaan, cab biyo badan. 6. xaday walwalkaaga. haddii aad leedahay walwal ama isku buuq waxaa khatar ugu jirtaa si guud daciiftinimo soo wajahda jirkaaga. dhanka kale haddii aad maamusho isku buuqaaga waxa aad gaartay isu dheelitirnaan difaac oo jireed. si aad u dhammayso isku buuqa, qaado dawooyinka lagu yareeyo, samee jirdhis, akhriso ama daawo waxyaabo ku farxad geliya. 7. qaado kaabayaasha difaaca ee jirka. kaabayaasha difaaca ee jirku waxay isugu jiraan kuwo sunta jirka ka saara, kuwo qayb ka qaata kor u qaadida difaaca jirka, waxaana ka mid ah macdanta sinkiga, fitamiin D-ga iyo fitamiin C. waad mahadsantihiin. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa mowduuceena maanta.